waxaan u malaynayaa waxaan maanta ka qayb gelaynaa furitaanka kalfadhigii saddexaad ee baarlamaankii labaad ee Jubbaland oo kan hadda aan fadhinaa uu yahay baarlamaankii labaad ee Jubbaland waxaan furaynana ay tahay kalfadhigiisii saddexaad markii la soo xulay iyo ilaa maanta laba kalfadhi hore inay galeen maantana uu yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanku uu leeyahay waxaan rabaa inta aanan u gelin xaaladda guud ee Soomaaliya inaan ka hadlo midda Jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo asaaskeedu waa ahaa mid jugraafi ah dastuurka waddankuna uu qabay in state walba laga dhisi karo 2 gobol iyo intaa wixii ka badan ayaa waxaan filayaa inay ahayd Jubbaland meeshii koowaad ee xilligan dambe ee dastuurka la qoray federaalka state-ka ugu horreeya la dhisay sababtoo ah Puntland way ka horreysay laakiin Jubbaland waxay ahayd midii koowaad ee la dhisay xilliga dastuurkan hadda la sameeyey ama nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya asaaskeeda ahayd markaas sidaa Puntland wayna ka horreysay way isku tashatay asaaska dowladnimada Soomaaliyana qayb ka ah bilowgii ugu horreeyay Jubbaland la dhisayay waxaan garanaynaa waxay ku dhisatay dib u heshiisiin iyadoo aad ogtihiin caqabadaha iyo culayska aan la kulannay dhisideedii ugu horreysay ilaahay mahadi ha ka gaadho waxaan aad ugu faraxsanahay Jubbaland inay joogaan odayaal dhaqan oo waxgarada oo lafdhabar u ah oo garanaya Soomaalinimada waxa ay tahay iyaguna ay asaas u ahaayeen dhismihii deegaanka dhismihii Jubbaland marxaladaha aan maray ee ahaa isu tanaasulka kugusan halhayska lagu dhisayana uu ahaa war xaq ma doonina xal baan raadinaynaa waxaan rabnaa xal dowladnimo inaan gaadhno waxaan rabnaa xal horumarineed inaan gaadhno waxaan rabnaa bal inaan ka baxna associated system dowladnimo aan u gudubno taasay ahayd midda aan maanta ku soo gaadhnay laguna dhisay dhismaha maanta Jubbaland ee aad arkaysaan shabaabku culayska ugu badan maanta deegaanada Soomaaliya meesha ay ku hayaan waa gobolkan waxaana u keenaysaa istaraatiijiyada deegaankan uu leeyahay ee jugraafiyadeed ee mujtamac taasaa waxay keenaysaa inay keento in ay shabaabku baysaska ugu culus ka dhigtaan deegaanka marka ay international community aad wada hadlaysaan waxaa hadal lagaaga bilaabayaa waxaanu bixinaa sanadkii intaasoo milyan oo dollar oo maxaad ku bixisaan amisom baan ku bixinaa ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed baan ku bixinaa dhaqaalaha intaa leeg baan bixinaa ma jirto markaa wax dabagala oo loo geysanayo ama laga dabagelayo ciidankaas isaga ah ee hawlgelaya ee lacagta intaa leeg ku baxaysaay muxuu qabtaa xagee buu tagaa xagee buu ka hawlgalaa yuu wax ku biiriyaa lama sheegayo waxaa laga yaabaa maanta ciidanka nala joogay muddadii la soo dhaafay 4 sano 5 sano in hal dhufays lagu jiro oo aan hal maalin hawlgal loo bixin waxaa intaa wehelisa oo kuwa bixinaya aynan kula xisaabtamayn waxaa wehelisa dowladdii Soomaaliyeed ee mar walba lagala hadlayo waxa la yiraahdaa transitional plan sidii ciidanka Soomaaliyeed ciidankii ula wareegi lahaa waddankii ciidankii Soomaaliyeed ee qaban lahaa amisoomna ay bixi lahayd waxaa ku adkaatay inay la xisaabtanto tiraahdo war amisoomay dhaqaalaha intaa leeg baad leedinku bixiyaa maxaad qabateen maxaad soo kordhiseen maxaad u joogtaan way ku adag tahay laba ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso hawlgalaana way ku adag tahay maalin walba ciidanka la soo dhisay
waa la kala leeyahay degmo hebla reer hebel kan magacyaa loo bixiyaa aw ciidankii Soomaaliyeed intuu isku tashado iyaga kuwa amisoomta kana awood badan kana geesinimo badan isku tashan lahaana dawladda Soomaaliyeed waa laga leeyahay waxa inta ka sii dheer oo su'aashii ugaas Maxamed xasan yarow qayb ka noqonaysa maanta gobolkii Gedo mid la galay shabaab baa gacanta ku haya gobolkii Gedo maamulkii gobolka Gedo maanta kulligood Kismaayo joogaan gudoomiyii gobolka fadhiya waxa ugu dambeeyay wasiirkii dawladda amniga oo gobolka ka shaqeynaya oo shaqo soo ku maqan ka soo tagay gudoomiyaashii degmooyinka fadhiya sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto maanta gobernatooraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad dawladdii bannaan joogga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii uu mar meel istaagaa waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo inay shabaab la dagaalamaan iska daayay systemkii dhisnaabay dib u burburinayaan ma garanayo waxaan waagii kacaankii Maxamed Siyaad Barre 1969kii markuu dhashay saraakiil baa waddanka la wareegtay saraakiishaas loo diray gudoomiyaasha gobolada oo dhan saraakiil baariya degmooyinka ma waxaan ku soo noqonay 69kii oo saraakiil baan hadda waddankii u diraayo ciidan baa qabsanaya waa su'aal meesha taala gobolka Gedo dhowr iyo 10 sano wuxuu ahaa meelaha ugu waxaan u malay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale gobolka gacanta dhowr iyo 10 sano ku jirta halka qof ee mas'uulka kaliya intuu baawurkiisa qaato oo balad xawa ka soo baxo oo uu doolo u tago oo ka sii socdo oo yuuluq tagay oo isla habeenimada uu ka soo noqonay maanta ma dhacaysaa midaas ciidankii nabadgelyada joogay intii la burburiyay baa qayb laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la isaga dhigay sarkaalkii Itoobiyaanka ay habeenimo labada loo doolo iyo luuq u kala gudbaya maanta 7 habeen ku qaadatay oo la helikobtar ii doona aw amnigii laga shaqeynayay amnigii shalay waa maanta waxa la leeyahay ciidan xasilina la geeyay deegaanadaas oo weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan hadda waxay gaareen inay guri walba cashuur ka qaadaan waxa la ii sheegayay hal nin oo foornada baa diiday ugaaskiisa intii loo dacwoodaa leeyahay bari markaan dilaad wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo dawladdu waxbay soo kordhisay mise waxbay dhintay ma waxbay tartay mise waxbay lumisay taas waa su'aal meesha taala wada hadallada aanu galaynay inaan intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno arrinta Soomaaliya ay meesha ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kale noqotay taasa waxay keentay markaa bal inaan midda guud saan uga shaqeynaa ka shaqeyno midaasa waxay keentay inaan midda guud ka shaqeyno bal waddankaana meesha uu gaaray aan dib wax isaga weydiino waxay ugu qaadatay maalintii la doortay iyo maanta waxa u dhaxaysa muddo hal sana ka soo wareegtay ilaa hadda dawlad maana dhisin waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaarno waxaan raadinayaa dadka gobolkan in la isugu wado waxaan raadinayaa dawladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaarno waxaan raadinayaa waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oo ka wada hadlaan way socon weyday waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya maamulkana waa la dhisi horena waanu soconaynaa wax dambe oo u istaagaynaana ma jirto intaa ka badanna intaa wax ka badanna ma jiitami karayso arrinta Jubbaland shalay dib u heshiisiinta waad garanaysaa wixii lagu qaatay maanta ma doonayno inaan dib u sii jiitanno waxaan u baahannahay wixii hadda ka dambeeya inaan hore u soconno
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer Dhuusamareeb ama reer Samareeb oo aanan ka filaynin soo dhaweynta intaa leeg iyo deganaanshaha iyo dadku inay shirarka intaa leeg qaban karaan laakiin isku tashigooda iyo niyad wanaagga dadku ay sababtay inay qabtaan shirarkii Samareeb 1 iyo 2 iyadoo aan isla qaadanay inaan loo kala kicin ee shir halkaan la isugu yimaado lagana fadhiisto ayna aqbaleen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii xilligaa joogay inay Samareeb 2 noogula yimaadaan oo nagala qayb galaan shirkaas taasaa waxaan isku tusnay waxa maanta waddanka u yaalla inay tahay waddankaan inuu doorasho tago sababtoo ah Soomaaliya xasiloonida siyaasadeed ee hadda dawladnimadu ay ku soo gaaraysaa waxay tahay faram Cabdiqaasim laga soo bilaabo carta in mar walba isbeddelka siyaasadda uu ku dhaco xilligiisa dawladnimaduna taamkeeda ayna dhaafsanin taasaa keentay markaa in Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii Allah u naxariisto markii waxay yimaadeen la yiraahdo maya waa in waddanka saa loo galo Sheekh Shariif dhamaystirkiisii Xasan Sheekh tiisi haya waqtigii laguma dari karo madaxweyne Farmaajo la muujiyo markaa inay isbeddel loo baahan yahay in doorasho loo baahan yahay ma aha macnuhu qofka joogay ma soo noqonaya mise ma soo noqonaya laakiin in calafka la qaado oo isbeddelka siyaasadda waxaa asal u ah in la helo oo xasiloonida ay qayb ka tahay in doorashada ay xilligeedu ku dhacdo deegaan doorashooyinka waxaa labada looga dhigay haddii markii hore ay Muqdisho ahayd oo laba deegaanada la geeyey 6 goob deegaan doorasho la geeyey in haddana la sii badiyo si isku dhexgalka bulshada iyo deegaanku ay u sii hirgasho in la qoro deegaanada iyo dadka iyo say yihiin 2016 waxa la qoray waxay ahayd deegaano walba dadka degan in la qoro laakiin annaga tan waxaa muhiimadda aanu arkayna waxay ahayd in stateka loo daayo oo isagu kuraasta uu kala qaybiyo isagoo aan loo fiirinaynin yaa degan iyo yaan degaynin laakiin markii dambe waxay noqotay in la yidhaahdo maya yaa degan iyo xaggee la degan yahay haddii markaa ay noqotay filitaan la filayey in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas horta waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaay oo dhani doorashada la qabanayo stateka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho feer federaala guddiga doorashada la samaynayo waa 11 ay 8 leeyahay stateka uu leeyahay amniga doorashada iyo qabashadeeda iyo meesha lagu qabanay isagaale haddaan garbaharnay tegayno oo lagu qabanayo waxaa asala guddiga doorashadu inuu tago maamulkii gobolku inuu tago kii degmadu inuu tago wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto intaasi markay dhacdo yay doorasho meel ka dhici karaysa waxaan rajaynayaa dowladda federaalka intaa ka horeysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto maamulada gobolka ka jireen ay ku soo celin doonto hadday intaasi dhici weyda laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo sumadda kuraasta loo yeelayo inay noo socon doonto iyaas maxamed ma aana dooni markaan kismaayo ka tageen xamar ka degay waxay ahayd doodaydu gobolka Gadaa haddaan xal laga gaarin shirkaa kama qayb gelayo laakiin waxa ay hor yaallaa waxay noqotay haddaan arrinta intaa ku adkaysto oo aan idhaahdo taa haddayna dhicin middaasi ma dhacayso waxaa hallaabaysa tii guud ee Soomaalida teenan innagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno
way dhaqmi doontaa dadka dhulka deganna way degan yihiin waa runtii qolada kaambooni deganadii anaa aqaana wax la tiriyo hadda uma baahna reer jubbalandna way isaqaanaan sida loo degan yahayna way isaqaanaan laakiin dan yar baa laga arkay dantaas inay fulaysa inayna fulayn waa su'aal kale ku qanca oo ku jooga waxaa hadda aad ii culaysinaya xildhibaano jubbaland ka soo jeedo kuraasteeda maxaa halkaa loo geeyey maxaa halkaa loo geeyey waxaan rabaa inaan u sheego doorashadana xaq annagaa ule inaan qabanno dowladda federaalkaana warqadahan soo saaray bay ku qoran tahay waxay xaq u leedahay meeshaan ku qaban karrayna ku qabsoomi doontaa intaa ka horeysana waxaan rajaynayaa wiilasha afka duuduuban iyo kuwa tuurtale iyo kulli intay ka baxaan in deegaanadu ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan waxaa kaloo jiray oon hadda muddo 1 sano iyo aabafa u joognay inaan dhisno kawnsiladii oo la dhaadhiciyo sababtoo waxaa loo hayaa dhaqaale iyo miisaaniyad wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland qorshaheeda kow garbaarnay buu ah gudoomiyaha gobolku wuu ogaa maamulkuna way ogaayeen waa nagu adkaatay inaan geyno dhismihii kawnsilka inaan ka bilowno garbaarnay waxayna dee ma jiitami karaya intaa in ka badan dowladda waxaan ka codsanaynaa waxa loo qabanaya dadka waxa ugu muhiimsan maamul iyagu ay leeyihiin oo isdoortaan oo inta guddoomiye degme iyo loo magacaabayo iyagu ay iska soo doortaan oo dhaqaalaha barnaamijkan hadda GBLG-ga waxaa ku jira wadooyin waxaa ku jira isbitaallo waxaa ku jira garoomo diyaaradeed in bulshada horumarka loo ogolaado annagu intii aan qaban karayna hadda mashaariicda jubbaland fulisay in ka badan 70% gobolka Gadeewe ka fulinay haddii loo baahdo goratoraha gobolka ayaa ka hadlayo soo shaac bixin doona laakiin tan hadda waxay uga muhiimsan tahay kawnsilada in la dhisay in maalin walba qof loo magacaabo loo geeyo waxa dadka uga fiican inay iyagu golo deegaan doortaan gudoomiye iska doortaan dhaqaale iyagu ay miisaaniyadiisa leeyihiin oo lagu caawinayo wax ku dhisaan la helo taasna waa midda hadda afmadow laga bilaabay qorshuhuna uu ahay garbaarey laga bilaabo waayo waxaa noo qorshaysnayd sida wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqaynaysay 2 meelood oo gada ah marka hore in la sameeyo kadibna jubbada hoose 2 meelood laga bilaabo waa mid aan ugu celinayo dowladdu inay u ogolaato dadku maamul ay leeyihiin inay dhistaan oo kawnsilka ay doortaan oo askar loo geynaya laga daayo midda aan kaga baxayna middaas ahayd sababtoo askarigu xaalad muddo yar ku sugan oo markaas deegaan ama markaas shabaab laga xoreeyay maalmo la sii joogisteeda mooye maamulka shacabka inuu ka yimaado oo odayaashu soo xulaan oo dadka deegaankaas kawnsil ama golo deegaan oo 12 intay doortaan kadibna ay guddoomiyihii iska doortaan iyo hay'adihii kale oo dhan state-kuna levelka uu ku yeelanayo laamaha amniga inay ka shaqeeyaan baa muhiim ah waan rajaynayaa muddada yar ee noo hadhay hawshaas inay dhammaan doonto waxa inoogu muhiimsan waad ogeedeen xamar waxa qaylo ka yeedhayay doorashadu ma dhacaysiyo way dhacaysaayo in lagu darsadaa la rabaa haddaan wax biinayna wuxuu yidhi geel 12 qaday baan soo arooriyey haddaan wax hagaajiyana wuxuu yidhi geel 12 qaday baan soo arooriyey haddaan wax biinay waxaan keennay waddanku doorasho inuu galo haddaan wax hagaajinayna waxaan keennay waddanku doorasho inuu tago taasay noqotay middaasay noqotay midda ay mas-uuliyiintii siyaasadda ee waddanka hagaysay go'aanka ku qaadatay cidda iman doonta ilaahay baa og qof waliba calafkiisa yuu qaadi doonaa taa markaa ma laha masale loogu waxaynayo
waxaan u malayn intaa ka badan tafaasiil kama sii bixin karayo oo arrimahaas iyo say u dhaceen iyo sida ay tahay warkeedu wuu cad yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahad celinayaa kulankan maanta furitaanka baarlamaanka labaad ka fadhigiisa saddexaad baarlamaankuna waa inoo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu